السلام عليكم أصحابتي qaaliga waa idin wada salaam meel kasta adduunka joogtaan waxaan rajeynaynaa caafimaad qabtaan aniga sida oo caafimaad qabo alxamdulilah sida arkaysaan waxaa waay jikadii way isdhex daadsan tahay adduunyada dhan isdhex yaalo soo waxaa soo socotana ciideeni ayaa hadda soo gashay xali waxaan u daalnaa aad iyo aad ayaan u daalanaa waxaan dhahay nafteyda waa inaan u raaxeeya yaa howl ma dhammaanaysa adiga la dhammaanaysa mooyaane waan ka seexday jikadiisa oo sida arkaysaan waxaa waa subax horeeto waaye alaabtii lagu afuray wixii oo dhan ayaa jikadu isdhex daadsanayaan big ka dhahay ma fahanteen waa ka dhacay soo alxamdulilah nafta markay ugu soo noqotay hoosheenii adduunkeenii ayaa mufti ka gedinaya dhulka roog inoo ma yaal meesha cuntada waxaa waa roogii waan ka qaaday raashinkii ayaa ku dadaatay caruurtii yar markaas waxaa waa raashinkii kaaga daadaadinayaan aniga sida horta gabadheyda waxaa waaye gabadheyda alxamdulilah waxaan isku day inaan baro cuntada kaligeed inay cunto soo waxay jeceshahay markasta inay noqoto kaligeed waxeed inay cunto isku daydo soo way dadaadinaysaa ilmaha yarkan waa sidaas waxaa wajiga soo marsaday waxay tahay maaski waxaa wajiga yaa ciid inta soo inoo soo geli waxaa wajiga quruxsan insha allah wixii awood markaas ama maaskiga awood guriga ku yaal un dhag isku sii ma fahanteen meeshaan waxaan kala aruurinayaa qashimankii adduunyadii ayaan kala aruurinayaa kartoomankii internetka wixii loogu dalbaday dharka ciida wixii suuqa laga soo gadan waaba laga soo gadaba wixii kala suuqa laga soo waayay internetka laga dalbaday soo baakadihii iyo wixii qashinkii oo dhan ayaan kala aruuriyay kuraasta ayaan kor u qaaday waxaa waa shaqaa sharaf la shaxaada ceeb kuraastii meelihii dhulka u yaaleen oo kale lugihii ayaa waxaan ka titiraa birta kuraastaas birta lugaha macdanka leh walaa waa ku qaldan markaa gadanaya fahanteen waxaa waaye wasaqdan aad ay u qabanaysaa birta mideeda kaleetana lugaha ayay ka dilaan ilmaha lugahay ka dilaan soo talisada iyo maadada talisada xaafadda yaa gabadheedii yarta quruxda badan maasha Allah tabaarakallah awlaad waxaa waay baar ilaah nooga dhig inta haysan awlaad ilaah siiyo inta haysan ilaah u barkeeyo maasha Allah tabaarakallah soo meeshas qashankii ayaa weli yaalo oo halkaas ayaan ku gurguraya baakadaha meelaha aan ka soo saaray haddana waxaa waay meesha cuntada lagu kulleynayay fruugtiga ama qudaarta ii saarantoo kaleeta ayaan iska soo masaxayaa ani inta badan waxaan jeclaa alaabta makiinada intaan ku guran ka hor meelaha geesaha oo dhan inaan iska soo hagaajiyo soo qaanadaha meelihii ramadaanka waa garanaysaan adigoo afurka wiiw yaa oo ordaya marka jikada meelba gacmaha taabanayaan soo aniga waxaan sameeyaa inta badan qaanada ugu isticmaalka badan waa qaanadaas oo raashinka iyo waxyaabaha qaar ay ku jiraan gacanta ayaan hore u marinayaa marabo inuu waxyaabaha qaar ay kama muuqato oo gacantaada ay qabanayso mideeda kaleetana caruurta markay yaryihiin waxaa qaanadaha maanta dhan way taabanayaan gacmooda ku sawirmayso wax yar oo qudaar haddaa siisoo kaleeto ku dhigdhigaya ma fahantay meelaha soo alxamdulilah ilmaheena ilaahay noogu yaa noo deysto waxaa waaye wax loo baahan yahay ma fahantiin hawshaas dheerida in la qabsado soo kursiga caruurta asagan sidoo kale wuxuu u baahan yahay nadaafad markasta cuntada lagu cuno waa lii soo noqday waxaa waaye waxaa loo jecel yahay adduunka meesha aniga joogo ama marka hawl qabanayo adduunka loo jecel yahay lugaha in liiga dhigdhigo maanta dhan lii imaado maasha Allah tabaarakallah farxad siyaada ayaan ka qaadaa ma fahanteen soo meesha buugay wadataa buugeedii ayay waxay taagan tahay anigana waxaan dhahay buuga fariiso wax qorqoro kadibna fariga ayaan geedinaa insha Allah oo meel aan soo fariisanaa haddii kaleeto waxaa waaye mashiinka alaabta lagu guro waxay dalaq ay dhahaysaa ma fahanteen mashiinka alaabta lagu guro adduunka u jeceshahay barkii oo la furo kaleeto alaabta kuma guran kartid waxay kaa qabanaysaa mashiinka inay dhex gasho midyaha ama qaandaha kale meelaha la geliyo kale dhan isla markaas gab ay ka soo siinaysaa inta ku mashquulsantaa saxmanka meeshaan gabsaar yar la dagaalama iskaraal noqday indhaha idinka diili ma fahanteen yaa karaal noqday insha Allah soo meeshaan alaabtii nadiifka ee markuu noogu jirto ayaan ku kala gurguraya qaanadahooda kadibna waxaa alaabtii wasaqda ahayd ayaan sameyn doonaa insha Allah inaan ku guro kadib waa isla arki doonaa
ugu dambeyn alaabtii yaryarad oo dhan oo mashiinka u qaado dhan ayaan kusoo guray digsiyaashii wixii waaweynaa ayaa ii haray kadib meeshan waxa waaye waa liisoo noqdo waxaa la taagan yahay hooy kaama dhamaanayo ma fahanteen ilaa reer gelisid waxaa meesha kursiga ayaa soo qaatay ayaa kusoo fariisay kadibna gacmaha ayaan iska soo dhaqay nadaafadu waa muhiim marka hoosh qabanayso insha Allah oo caruurta wax siinayso gacmaha inaad iska nadiifiso si ay bakteeriyada ama waxyaabaha gacmahaaga fariistay oo kaleeta kaaga haraan insha Allah hooynimadu waa shay qaali ah adigoo hooshii ku guda jiro ama hooshii dhexbartan ku maraysa ayaa hadan iska joojinaysaa kadibna ilmahaaga wuxuu u baahan yahay ayaa siisanaysaa intaas ayaa hooyo lagu yahay waxa waaye caruurtaada waxay u baahan yihiin ama si yani haddii baahi u hayso inay haddii ay baahi hayso haddii hooyo adaa ma fahanteen adiga akhrisan kara caruurtaada tarbiyada xaggeeda wax kasto adiga og insha Allah gacantaada ayuu ku jiraa ilaahay ka suko soo hooyo inta u nahanaba intaas waa ma fahanteen alxamdulillah soo qaanadihii ayaan haddana hooshini ayaa halkaas kasii wadanay qaanadihii korkoodii meelahaas oo dhan ayaa dhag kasoo dhigaya intan waxaa ii fadhiis gabadheydii maasha Allah tabaarakallah oo wada sheekeysanaynaa marka waxaan idinku codsanayaa gabdheyga quruxda badan haddii ay tahay markii ugu horeysay janaalka soo booqatay waxaan ka codsanayaa abaayo quruxee yaa inaad janaalka subscribe inoo saarto marti ka mid ma fahantay janaalka waa janaalkaaga insha Allah walaashiina waaye soo dhawaada markii hore waan iloow inaan sidaas indhaho laakiin muuqaalka ayaan ku dhex leeyahay haddii aad muuqaalka intaan inoo soo gaarto waxaan ka codsanayaa muuqaalka inaad ii share garayso like-tan ii saarto adigoona like aadan saarin waa kugu ceebtay quruxa inaad ka tagto ma fahanteen insha Allah waxaan rajeynayaa muuqaalka inaad like saartaan meeshaasna waxaan soo sameeyay wixii sasaarnaay oo dhan ayaan kasoo qaaday waxay ugu noqotay wax indhaha ka babatay ma fahanteen wixii haddii aan jikada geeseed oo kaleeto waxyaabaha aan saarto ama aan ku sharaxdo oo kaleeto haddii muddo 2 bilood ama bil iyo wax la jiro ay ii saarnaadaan indhaha ku caajisaan waan ka bedelaa wax yar ayaan ka bedelaa oo updateering ayaan ku sameeyaa sidaas ayaan qurux badan naftaadana ay ku noqonaysaa يعني جوي كليت أيا دريميسا نفتاد جوي كلا أيا دريميسا جكدن مركز توحى في عن علاقتين لسك كلا يريو أو لسك كلا سارو waxyaabaha aad u xun waxa waaye meel kasta markay wax ku yaalaan ama jikadaada ay tahay iyada dhan jiko alaab kasta meel kasta ay ka saaran tahay walaa way ku caajisaysiin insha Allah soo iska kala wada qaada dhammaan alaabaha iska kala yareeya alaabtii markii aan soo dhaqay intii aan soo nadiifiyay halkaas ayaan soo nadiifiyay oo alaabta nadiifka ayaan ku soo guray markii inoo yani biyaha ka baxan ayaan soo khalaji doonaa insha Allah kadibna waxa waaye geedii qashinka ayaa bacayaashooda wuxuu ku kala shubay yaa waxaa waaye gabadheeda gabar ka dhigaa ma fahanteen gabadheedan gabar ka dhiganayaa tinta u shaleynaa insha Allah tinta waxaa adduunka waxa loo nacibiyaa tin la shaleeyaa loo nacibiyaa halka rafaada iyo dhibka aan kasoo kala marnay iyadii aan dagaalka adduunkan dhex maray waxaan u keenay alaabey waxay ku dhidhiisho aniga ma rabin waxyaabaha la daawanayo kaleeto ama mobile ama iPad oo kaleeto inaan u dhiibo ay ku tababarato ma rabin mana doonaynin insha Allah waxyaabaha qaarmiga loo yaqaan ama waxyaabaha la daawado kaleeto ilmaha uma fiicna indhahooda hadhow waxay noqonaysaa wax ay ku dhagaan ama ay la qabsadaan ee markasta ay u baanaadaan aniga waa kala dagaalamaa uma dhiibo waxaan taaganaa alaabeydan ee waxaan qabso yaa waxa idin weydiinaa aniga 3 sano ugu horeyso waxa soo nasto fahanteen wiila curud yahay maasha Allah tabarakallah soo gabartii ma loo hagaajinayo waxaas maanan haysanin laakiin alxamdulillah ilaahay waxaan ka baryay gabar inuu si waan iigu deeqay maasha Allah tabarakallah gabadheeda ilaahay ii deesto tinteeda waa soo kurtay waxa waaye hooyo aanan gabar haysan waa cidlo meel taagan fahanteen wiilka laga maarmo laakiin waxa waaye gabdhaha waxa iska naan anaga dumar markaan waxa u kuskusno waxa u taagtaagno maanta dhan sidii anaga isku taagtaagno kala waxa u taagtaagnaa rabnaa ma fahanteen soo maasha Allah tabarakallah tintii marka u soo hagaajiyay inta soo iska yar kaftan awlaad waxa waa la kala ma jecelo sidaasna ma aha laakiin waxa waa gabdhaha wiilasha waxay ku kala duwan yihiin gabdhaha waqti badan ayaa gelinaysa oo ah tintooda ina waxyaabo badan u sameeysan ma fahanteen intaas uu bisay gabdhaha ugu duwan yihiin wiilasha mooyaan wax kale timi jiraan soo ugu dambeyn miiskii cuntada meeshii uu yaalo dhan dhulkii ayaan iska soo xaaqay alxamdulillah intaas waxa waaye hooyo xoog leh maskaxdeeda ay shaqeynayso energy fiican leh ayaa intaas sameeyso xoog ilaahayna barkay dhamaanteen waxay soo markii jikadii aan ka dhamaanay meel qaanad meeshan oo nafta iga bitisay oo yani muddo dheer ba aan la hagaajinin sida guriga u soo dagay mabal taaban baqaanadan
soo kusoo degay waxyaan ayaa familkii hore oo ka guuray guriga ayaa waxaan ku daadiyeen anigana sidaan isku dhahay maanta hagaaji may beriya hagaajinaysaa maalin ii dhibtay qaanadaha gurigana way ugu yaraayeen waxaan ku qasbanaaday markii qaanadii inaan yani xooga saaro oo aan maanta hagaajiyo si aan alaabaha meelaha iga kala yaalo kaleeto aan ku habaysto insha Allah soo qaanadii ayaa waxaan u galay nadaafad inaan kala hagaajiyo oo aan tirtiro qaanadan wallahi muddo dheer ayaan maskaxda ku hayn fahanteen inaan kala toosiyo oo waxyaabaha dharkayga amdi kaleeto go'ayaasha sariiraha oo kaleeto waxyaabahaas dhan inaan ku kala habaysto insha Allah waa isla arki doonaa sida ku soo baxda qaanada horta marka horeeto si fiican ayaan soo habeey doonaa ma garanayo wixii ku daadiyeen waxaas ayaa lagu daadiyay qaanada cidii ka guurtay oo kaleeto waxaan u maleynayaa inay ugu jirto kaleeto daawooyinka dhulka lagu dhaqamiyo ma aqaan waxyaabahaas oo kale inay ugu daateen aan jeclahay soo ku soo degaba aniga shaqadayda iyo danahayga ma ka galin laakiin maanta ayay baahi iga soo gashay maanta hadii baahi wixii ka soo galin waxa la yiri nagta laga soo fahanteen soo qaanadii ayaan u dhar dhigtay yaa dhar dhigashana waa ceebe qaanadii waxa waaye mariyaha u xiitay saasaan ka soo dhigay ma sha Allah tabarakallah xoogin ilaahna barkeeyo wax aanan lagu dadaalin guusheeda lama helo waa kaas ugu dambeyn markii hore seedii had seetay isku mid maaha kaafi kala dheeriye kala tahay ما شاء الله تبارك الله سو سيدس أنا كسو ودينا قانديني waxaan kaloo yani aan sameeyo doona insha Allah waxay tahay qaanada shabaqyada soo kaleeto waxaan kaloo kasoo furanayaa qaanad kaleeto qaanada uma baahna shabaqyadan waayo qaanada waxaan saartaa dharka jaakadaha dharka yani ayaan susuraa bis jaakadaha banaanka laga imaado kaleeto ayaan ugu talagalay soo meel qaldan ay ku yaalaan anigana u fikiri waxaan dhahay qaanadaas iyo qaanada isku mid waaye shirkada ha xanaaqda deerato waa ina habaysataa soo qaanad ayaan kasoo dhex bixiyay alwaaxyada oo kale ayaan hal mid kamid ah kasoo dhex bixiyay qaanadii labada shabaq oo qaanada kale ku taala ayaan kasoo saartay kadibna halkan ayaan kusoo xirinayaa maskaxda iyo aqliga ilaahayna siyaadi waan kusoo celcelinayaa ma sha Allah tabarakallah soo gurigaaga wixii yaalo adiga markaas baahi ku hayso adiga ina farsamadiisa kartid oo yani halkan hadii wax kaaga xumaadaan halkan u bedeli kartid meesha waxaan arkay alwaaxi marka ka fujiyay inuu wasaq ku dhigan tahay soo waan soo hagaajiyay hadaati hadda isku mid ma waraq yani qaanadan isku mid maaha halkan saxanka aan soo qaatay waxaan ku soo habaystay wixii catara iyo barfuun iyo adduunyada ku soo habaystay halkaasna gooyaasha ayaan soo saartay ma sha Allah tabarakallah qaanadas marka hore waxay iska heed cilo muuqaalka hadii inta noo soo gatay like and share